بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حقاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما وحن سلام يا أمد الصومالية دردن ميل كستا أي جوغان حقاك ما أنت تاريخ واحد يقول لك نيسا كوية طبعا كي بشي نوفمبر لبكون يساقالي طبعا هالك ساعدنا waxay ilaa shalay soo xangaagabataba ay barruusin ka dhigatay 12 duhurnimo oo gaw ah wax yar kadib baa insha Allah la adimi doona salaadii duhurka waxaanu joognaa dhaka weyn media hadaan nahay magaalada Kismaayo barnaamijkan aan idin soo gudbinayno waxa la yiraahdaa waxa joogiyo wixii jiri jiray waxa joogiyo wixii jiri jiray hagaag hadaba aynu bal fahanno waxa joogiyo wixii jiri jiray ummadda Soomaaliyeed maxay ahaan jirtay xagay ka timid war xagaynu ka nimid dalkeenu wuu burburay burburka maxaa sababay waayahay ummadda Soomaaliyeed mar baa la yiri ummadan la yiraahdo in jaamacadda Carabta Ciraaq baa inaga horeysay baa bari inakuna wadanka labaad baynu ahay waxayna ku dhacnay under zero maxaa keenay ciidanka Soomaaliyeed oo 35,000 ah yeen Itoobiya la dagaalanay marka Itoobiya dagaalka aynu ku qaadayna halka askari ee Soomaaliga ah 35,000 baynu nahay ugu hadda waxa ku aadayay 9 askari oo Itoobiyana haddaba 35,000 waxa ku dhufataa 9 ciidanka Itoobiya 77 intaas oo ahaa inaga oo haddaba 35,000 haysana ayaa waxaan ku siganay hadaan Warsaw inaga soo gaadhin isbahaysigii la oran jiray magaalada Addis Ababa shaki igagama jirin in gacanta lagu dhigi lahaa maxaa ka dambeeyay kacaankii dadaal badan buu sameeyay laakiin marnaba waxaan laga fakirin kacaanka kadib war maxaa iman doona waxay Soomaalidu ku mahmaadaa ninkii waxa taagan iyo today garanaya tomorrow fahma haddaba barnaamijkaygan waxa joogiyo wixii jiri jiray inta aanan u gudagelin daawadayaal dhageystayaal bal aan iska rido waajibka wadaninimo ee saaran Soomaaliya midnimo ay u baahan tahay wada jir bay u baahan tahay haddaba waajibka isaaran muxuu yahay waa dal waa burburo dib u soo kabanayay qof walowba dadaal qof walowba ducee qof walow damacaaga iyo dookhaaga u kaadi oo danta guud ka shaqeeya bal xagga nadaafadana aynu ka hadalno qashin waa god ku aasama gaadhiga saar ummadda Soomaaliyeed ay meesha doontaan jooga waxaad ogaataan inuu cudurku idin jiro inta qashinku idin jiro qashinkana waad iska asturi kartaa cudurna saaxiib lama noqdo qashinna lama saaxiibo haddaba maxaad samayn qashinka 3 maada mid ku samee god ku aas ama gaadhiga saar oo iska fogay hagaag ummadii Soomaaliyeed aan mar ku noqdo malaayiin qoys noqday weeye Soomaali waa mid qureeta iyo midho geed kaliya moorada ka dhaxayso wadadan kala maarmin adduun waa ismiciisiye isku mowqif ahada hagaag inta markaan ka gudbo bal aan u gudbo halka maanta la joogo ummadda Soomaaliyeed inay soo gaadho jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya iyadoo la inoranayay maanta jamhuuriyadda Soomaaliya badhaho inaynu halkan maanta soo gaadhno qiimo weyn ba inoogu kacday hadduu ruuxu dagaal galo xubnihiisa jir buu ku waayaa waa qofka ama naftu ku waayaa gacan buu ku waayaa lug buu ku waayaa nafta dhan baad ku weydaa dalkeena Soomaaliya dagaal ehli ah buu galay dagaal sokeeyuu galay oo qaab daran oo khadhaadh oo Soomaalidu waxay ku mahmaadaa dagaal sokeeye waa qababax marna waa qoomamo waaya haddaba wadankeeni xubno badan ayaa la isku haystaa ama maqan ama waynu kala googoonay midnimadii dhaawac baa gaadhay dal ahaanna bad iyo bari dib baa ina gaadhay
taa waxay nooga sii daran shacabka Soomaaliyeed oo ah shacab aad u qiimo badan shacab aad u samir badan shacab aad iyo aad u tayo fiican caalamka meesha ay tagaana lagu amaano meel alla meesha ay tagaan iyaga gacanta la hoos dhigtaa iyagu cidna gacanta ma hoos dhigtaan shacabka saasa way adkaysteen way soo dadaaleen maanta meesha ay joogaan waxay ku soo gaadheen ya Allah ya tubaadi iyo duco iyo rafaad iyo ku fooka iyo ku soo gaadhi haddaba waxaa la yidhi niman waxa soo socda garan wax jooga ma garto ummadda mustaqbalkeeda yaa ka fakaraya yaa u xil saaran yaa mushaar ku qaata siyaasiyiinta ayaa had iyo jeer waxay u xil saaran yihiin ummadda mustaqbalkeeda masiirka ummaduna wax kalaba lagu kaftamay wax lagu kaftami kara ma barnaamijkeena la yiraahdo waxa joogiyo wixii jiri jiray qof waliba waxa uu ku hadli haddaan la qorin oo la qiimayna arrintu waxay isu bedeli doontaa xagga jirjircadka barnaamijkan haddaba waxa joogiyo wixii jiri jiray wuxuu diiradda saarayaa oo uu ku wajahan yahay hadal Sheekh Shariif Sheekh Aadan aan dhahday waa Sheekh Shariif madaxweynihii hore ee qaranka Soomaaliyeed uu ku hadlay 12 caana maal oo la soo dhaafay gudahood aan dhahday 3 caana maal ee ugu dambeysay ee aynu ka soo gudubnay gudahooda Sheekh Shariif hadal uu ku hadlay ayuu barnaamijkani diiradda saaraya waayahay dawladnimadu waa system dawladnimada inaga u baahan dawladnimada inaga u baahan si aynu u noolaano oo shinniba ka maarmi weyday shinnidu waa dawlad boqor bay leedahay wada jirkaas ay ku shaqaysataa malabkay ku samaysataa oo maanta waxay oran jirtay day shinnidii dhigaalkii ilmaha laga dhibaateeyay kol intay dhirifto yaa ciil halka uga dhaqaaqdaa waxay dholondhashay duusho ay dhidida oo daasha dhaadheerka ciilasha aan gooyay ag dhigata waxay soo dhawaatay biyaha way iska dhurataa ficilkayda dhamiso shaqada way iska dhaxashaa markay malabka dhigatay hurdada yaradha kooshaa dhowr baa cadaawaha inta dhowrayoon ladin hadii loogu soo dhac dagaal iyo ku dhimataa gobannimada waa loo dhintaa oo waxdiis dhigan dawladnimo shinni baa ka maarmi weyday inagoo bani aadama kama maarmi karno in xisbiya mucaaridii shaqeeyaan oo ay dawladda mucaaradaan dawladina jirto waa systemka dunidu ku dhisan tahay oo wax loo baahan yahay ummadda nabi maxamed dulmiga iskuma raacdo dulmi isku raaci meeyne keenni khaldan waa loo sheegi Sheekh Shariif waxa weeyaan waa xisbiga himilo anigu dawladda mucaarad baan ku ogan ka soo horjeedaa أول هرنا مدياتر بانها لكن مدياتر كيجي يا وليه سو ما حي وأنا كتجين مدياتر وامحي وأده لحادية أنا هين معارض أنا هين محافظ dad qayriina oo siyaasadda u bislayn yaa waxay ku doodaan ama ay barnaamijyo ku duubeen ama ay soo qoreen abwaandhiirhana waa dil toogasho waxa hadaba su'aal leh war adigu dil toogasho macnaheeda ma taqaanaa waa kuwa meelaha ay YouTube-yadan ku kala kacsan abwaandhiirhana waa dil toogasho oo wuxuu yiri farmaajo wuu fadhiistay waayahay hadaba habal haday dil toogashaad halka marka waxa ka cad qayrinimada siyaasadda aan loo bislayn ee aan la aqoon dimuqraadiyadda iyo siyaasadda midna meel ku qorto ogaada Soomaaliya hadaatiyin dalkeena Soomaaliya boqolkiiba 70 waa dhalinyaro soddonna waa rugacda aan anigu ugu yarahay taasi halisteeda iyo dhibaatadeeda ay leedahay Sheekh Shariif wuxuu yiri dawladda iyo ururka shabaab waa isku mid buuy siyaasiyan hadalkaas bal hadda cidii siyaasad ahaan aqoonteeda labay nuu deynayna waxa kale oo hadaba afkuba tuuqda gabay oo ruuxba ruuxa ku xiga eegay marka uu yiri Sheekh Shariif magaaladan waxa haysan jiray Mooryaan waxa haysan jiray buu yiri xarakada shabaab
waxaa haysan jirta Itoobiya intaba waan ka saarnay thumma wallaahi kuwanna waa laga saari madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif afkiisa muuna ka oran xabad baan adeegsanaynaa muuna oran kuwanna waa laga saari hadduu yidhi waxayba noqon kartaa siyaasiyan baa loogaga saari oo dastuurka iyo siyaasad baanu kula dagaalamayo waanu ka saari waxayna noqon kartaa dagaal baanu kaga saari dawladda nabad iyo nolol markiiba way ka jawaabeenoo maareeyaa ka jawaabay oo waxay sheegeen sida ay uga xun yihiin laakiin midaan anigu idiin sheegayaa Soomaaliya haddaad tihiin hadalkaa Sheekh Shariif wuxuu keenay quus iyo argagax wuxuu keenay sida aynu u nahay dad waxaa hadalka Sheekh Shariif ka mid ahaa ummadda Soomaaliyeed si dhib yar bay ku aamintaa halkaa waxaa ka cad shacabka Soomaaliyeed inuu yahay shacab daacad ah inuu yahay shacab had iyo jeer maamulku ka xun yahay laakiin iyagu dad gobaho fiican ay yihiin anigu shakhsiyan hadalka Sheekh Shariif markaan maqlay thumma wallaahi ku celceliyay waan argagaxay xaqiiqada inaan ka hadlana ka fursan maayo oo waxa la yiri hadal ninka aan runta ka sheegin been buu ka sheegaa dadka Soomaaliyeedna waa dhalinyaro ay u badan yihiinoo 70% oo wayagii u sacabaynayay Sheekh Shariif dastuurkii uu ka gudbay baan anigu leeyahay wuu jabiyay siyaasiyanna khalad weyn buu galo dhaawac weyn oo xagga siyaasaddu geystay Soomaaliya maanta ilays yar baa u bariiqay oo dawladnimo oo inta yar dhagaxyada iyo carrada ku hoos jira ayay ummaddu eeganaysaa ninka marka intuu ummad ka dhex kacay yiri xabad aan ilaahdee xoog baa lagu xoog yaan odhan waanu ka saaraynaa kuwanna hadday joojin waayaan hadda mucaarid iyo dawlad ways cadaadiyaan been sheegi mayno mucaarid iyo dawlad ninku marka uu mucaarid yahay midna arrinta midina hadda bal iska hubiya ninkan madaxweyne hore soo ahaa oo Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna wuu ku raacsan yahay ayaama dhaweeyday labada nin isku lug xidheen oo ay wada socdeen oo ay kaftamayeen oo ay nashaadayeen anigu waxaan idin sheegayaa xisbiga himilan ka tirsanaa maanta ka hor xisbiga himila waan ka baxay kasimid ahaan maayo oo waxaan kaga baxay hadalladii uu Sheekh Shariif ku hadlay waa غير mas'uulnimo waa burburin qaran weeye caadifad bay huwan yihiin haddaan caadifad qabiil idhaa Sheekh Shariif qabiil ma soo hadal qaadin xisbigiisana himila la yidhaa laakiin sida uu hadlay waxay muujinaysaa inuu Sheekh Shariif qayrin yahay xagga siyaasadda inuu Sheekh Shariif u dhurtay inuu nin iska wadaada oo macallin dugsi quraan uu iska ahaa Sheekh Shariif waa niman inaba lahayn siyaasad iyo waaya aragnimo xagga siyaasadda hadduu leeyahay waaya aragnimo xagga siyaasadda isagoo madaxweyne qaran soo ahaa hadalkaas ma uuna ku hadleen dadka qaarkiina waxaan ka maqlayay hadal kale oo imika haddaan ku hadlo aniga laftayda laga yaabo inuu wax ii dhimo oo maxay lahaayeen Cabdullaahi Yuusuf baa isagoo qabyaa cararay farmaajana isagoo iyadoo qabyaa hadduu cararo meesha wax kale ku jiray leeyihiin arrinta yeelkadeeda iska daay Sheekh Shariif hadalka uu ku hadlay waa arrin gilgishay dhammaan qaranka Soomaaliyeed waa arrin calankii Soomaaliyeed uu hoos isu dhigay haddaad adigu leedahay daawada dhageystay Sheekh Shariif hadalkiisa iyo waxba laga soo qaadin dee anigu taas kuguma raacsan Sheekh Shariif waa nin madaxweyne soo ahaa inuu yiraahdo qoladaas haysatay oo waa laga saaray haddaba waxaad ku garanaysaa Sheekh Shariif inuu yiri xabadaan adeegsanaynaa oo aanu dawladda ku saaraynaa waxaad ku garan saddexda qolo uu yiri Muqdisho haysan jireen waa Mooryaan harakada iyo Itoobiya saddexdaba dee xabad baa lagaga saaray dawladdana waanu ka saaraynaa hadduu yiri dee xabad baanu kaga saaraynaa ambu ka wada nin madaxweyne soo ahaa Soomaaliya halka ay ka timidna og halka ay u socoto ogna hadallada inuu yiraah waxay keenaysaa argagax quus iyo rajo xumo
waxay keenaysaa dhibaatada Soomaaliya ka dhacday oo maaran loo waayay imikana aynu inaga oo kala bogsannay xoogaa lafuhu ayna soo kabmayaan ilaan biixiyahaynu ka jajabnay alla ila hadalka Sheekh Shariif wuxuu keenay in la istaymoodo wuxuu keenay qof waliba inuu candhuuftiisa dib u liqo muqdisho waa caasimadii dawladda federaalka ee Soomaaliya muqdisho waxaa iskale qof walba oo Soomaaliya taaka walba oo Soomaaliya qof walba oo Soomaaliya iskale laakiin haddii federaalism la qaatay oo gobol la inoo kala xiro ooday muqdisho iyadu waa central waa meel ummadda oo dhan federaalka xarun u ah xisbiga UDP waxaan leeyahay mowqifkiina ku aadan hadalka Sheekh Shariif waa inaad cadaysaan Sheekh Shariifna waxaan u sheegayaa saaxiibkay Allaha xafide waxaan u sheegayaa hadalka hatta doorashada soo socota anigu codkayga waan ku siin lahaa laakiin balogow cod aan ku siiyay iska daay xisbigaagi baan ka baxay oo alla igu og yahay halayna hadalkii aad tidhi kama aanan seexan dhammaan ummadda Soomaaliyeedna way ka xumaatay marka aan sidaa u hadlayo ma ihinin u hadlaya nabad iyo nolol ma ihinin u hadlaya ku qanacsan nabad iyo nolol laakiin nabad iyo nolol mandate baynu siinay waynu doorannay waqti bay leeyihiin waqtigoodii wuu dhamaanayaa war aynu sugno inta aynu adeegsan lahayn innakoo siyaasiyiin iyo mutacallimiin iyo niman qaranka soo maamuli jiray sheeganayna inta aan leenahay dawladda thumma walla saddex mar buu ku celiyay waa madaxweyne hore oo qaranka ahaa qoodhiin iyo xeradiin ummadii Soomaaliyeed mutacallimiin baa leedihiin inkastoo la yiri 70% waa dhalinyaro haddana ummadda Nabi Maxamed baa noo marnaba dulmi isku raacmayne hadalka Sheekh Shariif waa hadal keenay dad badan oo caafimaad qabay hatta inuu dhiikar ku dhaco maxaa yeelay wixii ay rajaynayeen iyo rajadii ay qabeen iyo candhuuftoodii bay dib u liqeen waa mid kale oo la soo dhan karo war ummadda Soomaaliyeed nasiib xuma maanta anigu inta madaxa dawladda federaalka soo socota 2021 la dooran lahaa ilaah baa igu og Sheekh Shariif ninka anigu kalsooni badnaabo ah laakiin fudaydka inta baleeg wiil yar oo qori wata oo hab qabiil iyo caadifad iyo lagu dagaal galiyana waa wax qarankeennii burburiyay Sheekh Shariif waliba waxaan u sheegayaa hadaladiisi waxa kamid ahaa bal hadeeg waxaan nahay mucaarid wax dhisaya miyuu ku hadlaa hadallada noocaasa waa maya Soomaaliya in la isu keenay rabtaa Soomaaliya in loo baaqay rabtaa midnimo in loogu baaqo ummad muslimiin aynu nahay sunni baynu nahay waxaynu kala nahay male dhulkeennu aad buu ballaaran yahay webiyaal baynu leenahay xeebta Afrika ugu dheer baynu leenahay halka waxayna dhigay bal hadeeg waxa weeye waa innaga oo aan u fakarin si haboon iyo siyaasiyiinteena oo qayliina iyo hadalka Sheekh Shariif ay ku jirtay ummadda Soomaaliyeed si dhib yar bay ku aamintaa Sheekh Shariifow si dhib yar haday ummadda Soomaaliyeed ku aaminto hadalkaasi madaxweyne hadal lagu hadla maaha mudane waana hadal mas'uuliyadaada wax u dhimaya waana hadal aan maanta humo dhammaan intii taageerayaashaada ahaa inay dib kaaga istaageen anigana kow aan ka ahaade oo waliba sheegaya xisbigaagii himilo inaan ka baxay waliba waxaan ku sheegayaa Sheekh Shariifow maan sadheer oo xisbiga himila ku saabsanaa inaan dhawaan lahaa aad soo bandhigtid oo ummadda tustid laakiin ilaahay baa mahadda iska leh oo ka dhawaajiyay waxa uurka ku jirana Allah arka ruuxi isha dabana aadaanaha arkabal isku soo wada duubo bal haddaba mar anigu hore oo aan maansa sameeyay oo aan leeyahay qof walba qofkii qaranka wuxuu dhima hal la xisaabtamo maansaga kamid ahayd bal waatane in yar aan idin kala baxee ila dhageysta hadda ubanahan dhacdooyinkan qaraxyadan istabayaal waa qayrul caadi oo lama qaadan karayo waana la qadhiidhay hadii aan wax laga qaban hadaynaan qasaarahan qurun yahay ka dhiidhiin qaacinul wadanigiyo qowmiyadda kii nacib hadaan qoorta laga goyn waa qodob su'aale hadaan qaranka loo kicin أنا قبنايه هداينا نحمبذا قبن وقيمة بالله وحاو كقوليو نولي بوحو قبن إنكو كقيمين هدان حاشين لغو قرين كي قلي ولالكي والله قصاصيه هدان قيد على لغو ريدين كي قبضا كنا قرن انت قوضا لغا سورو هدان قوبض لغو حيدين انت قادنا ويسده هداينا قبلة دوغن إله قادر ويه انت قابشانين قرون يهي هديان صعبدا كر لو قبن كي قراءة دون نمو
ilaahay ma qadiye qoonkii fircoon iyo qaabiil jidkiisii kuwa qaadayee jecel inta lagu qalqaaliyo haddaan tooban loo qaban dibigaa ku quusana intaad weysha qalataan hilbaheeda qaydhiin haddaad qaybsan weydaan dastuurkeenna qoran iyo qawaaniinta noo yaal qurbajoogga tegay iyo qolqoljoogga soo hadhay inta ay qurquriyaan haddaan lagu qulaaminin dhuxulaha qarsoon baa ilay qiiqa keenee inta qiil la raadiyo oo qaadil loo tago haddii aan wax laga qaban alla ilaha qandhooto waa qaran bukoodaye eebowna daba qabo alla ilaha qandhooto waa qaran bukoode eebowna daba qabo maansadaas oo goor sii horraysay ahayd qaranka Soomaaliyeedna ka hadlaysay iyo waxyaabaha in naga qaldamay oo waxaan ku saxayay haddaan ka soo gudbo alla ilaahay barnaamijkeennii aanu soo gudbo kolkii hore waxaan doonayay inaan soo jeediyo talo aan siinayo nabad iyo nolol laakiin haddaan isku daro Sheekh Shariif oo sidaa u dhaliilay oo aan canaantay iyo talo aan siinayo nabad iyo nolol waxa laga yaabaa dadku inay si kale ii fahmaan alla ilaahay taladayda oo noqon lahayd in wasaaradaha dawladda federaalka lagu daro wasaarad la yiraahdo wasaaradda indhacadayska Soomaaliyeed baarjad bayaan la siinoo dakhli bayana yeelanine aniga meelaha wax uga soo amamaahane wasaaradda hal ay sameeyo dawladda tiraahdi oo shaqaalahayga indhacadayska inaan qorto yaan doonayay laakiin bal dib aan u dhigto Sheekh Shariif aan ku soo gabagabeeyo Sheekh Shariif oo hadalka tiri aad baan uga xumaanay ummadda Soomaaliyeed haddaanu nahay waana hadal adiga ka warramaya waa hadal ka warramaya quality-gaaga iyo tayadaadu intay dhan tahay waa hadal ka warramaya Soomaalidu waxay tiraa gal dadliqa u shaal lagu dayaa inta ay mool tahay intaadan harada ku boodin waa la eegaa hadalkani wuxuuna tusay inta mool ahaan hoosaad u qodan tahay inaadan fogeyn barnaamijkeennii waxa joogay wixii jiray oo maanta diiradda saarayay hadalla uu ku hadlay siyaasi loo hanweynaa maanta intaasaan ku soo gabagabeynaya waxaa farsamada ii joogay Maxamed Ibrahim Karaama oo ku mashquulsan kaamirada isweydaartooyinka xadhkaha xididada cinjirka ee isxambaaratada qaybiyaha bogsiyaha iyo beekhamiyaha isla markaana aad u duraamanaya doolilamoodiya faradaaliyaha soo awaamiir kala duwan u siiya kaydiyaha isnuujiyaasha aburyaha iyo codnaxiyaasha hagaag isku soo wada duubo barnaamijkan oo kala oo waxa joogay wixii jiray inta aynu bal ku kulmi doono idamka Ilaahay anigoo aad u niyad xun maanta indhahaygana aad moodo inay ilin ku taagan tahay waxaan idinkaga tagayaa waa aniga iyo Karaame wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh وبالله توفيق